Kevin De Bruyne iyo Thibaut Courtois laba ciyaaryahan isku qaran ah kana mid ah لاعبينta hoggaanku ah xulkooda marna ay wada yeelatay leeyaanshiyooda naadiga Chelsea ha yeeshee ay dhex martay sheeko inta ka dheer maxaa u qarsan labada laacib yaasa ahaa hogaamiyihii ama aktarka sheekada dhacday inkastoo dhacdadan oo kale kubadda cagta aysan ku cusbeen haddana waa ay ka hadal yaraatay qisooyinkii la midka ahaa ee kala qabsaday xidigo isku qaran ama isku koox ahaa sanadku waa 2012 mid waxa uu ku sugan yahay wadanka England isaga oo kamid ah naadiga Chelsea waa De Bruyne halka doorka kale ee sheekada nin kale ee Thibaut Courtois ama ku jooga Madrid qaasatan Atletico Madrid waa halka ay inooga bilaaban doonto la wareegitaanka jacaylka Kevin De Bruyne Caroline Lanjan waa atirishada dhacdada mar ay ka hadlaysana waxa ay ka tiri 2012kii waxa uu ii sheegay Kevin inuu xiriir la yeesho saaxiibadeedii igu dhaweyd waxaan siiyay doorasho aniga ama ayada waxaan diyaar u ahaa in aan siiyo fursad kale balse xiriirkeena marnaba ma noqon mid sidiisii hore ah Caroline waxa isku arkeen magaalada Madrid iyada oo safar ku timid Thibaut Courtois welina qabta qalbi jabkii ay kala kulantay gacaliyaheedii halka ay rabtana kaga soo bixi waayay fursad ay u aragtay qalbi dhayid ayuu u muujiyay Thibaut isaguna xaqiisa waxa uu baadi doon u ahaa naftiisa qofkii uu ku lamaanin lahaa waxaan wada qaadanay wada sheekaysi waxa uu ii sameeyay cunno waxaan ka helay daryeel aan horay u arkin xitaa 3 sanadood ee aan wada soconay Kevin waxa uu si fudud ku hantay qalbiga gabadhii dhaawaca jacaylka la liidatay hase yeeshee waxa uu waagu ku bariyay Kevin isagoo islahaa sahal kuma waayi doontid Caroline waxa soo laba kacleeyay jacaylkii uu u qabay maxaa safara ugu jiro waxa si isweydiin mudan daawade maqiyaano Thibaut ka timid mise dayacaad uu sameeyay Kevin De Bruyne oo dab ku shiday qalbigiisii jacaylkii iyo waayitaankii ku soo laba kacleeyay ee Caroline labada xidig ayaa milkiiliyadoodu ay wada lahayd naadiga Chelsea markay dhacaysay sheekadaas walow aysan garoon u wada gelin waxaase gaabis ku yimid xiriirkooda dhanka qaranka muddo kadib Kevin De Bruyne oo go'aan deganaani ay ku jirto ka qaatay sheekada isaga iyo saaxiibkiis keentay in la xalliyo soona hagaago xiriirkoodii iyaga oo si wada jir ah u matalay kulamo kala duwan oo heer caalami ah xulkooda qarankana kamid ahaa xidigihii ugu muhiimsanaa ee koobkii adduunka hadda u dambeeyay 2018 ka dhacay raashka ku matalayay daawada adigu maxay kula tahay sheekadan dhex martay Kevin De Bruyne iyo sidoo kale xidiga kale lagu magacaabo Thibaut Courtois ma si jeclaan lahayd dhacdooyinkani oo kale in aan soo gudbino